Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan halkaas uu ka qarxay saacado kadib dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ku wada sugan gobolkaasi Mudug. Waxaa la xaqiijiyay in dagaalka halkaasi ka qarxay uu ku naf waayay hal qof, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in weli ay socoto dhawaaqa rasaasta, labada maleeshiya beeleedna ay isku dagaalayaan gudaha gobolka Mudug. Waxaana dabcan dhaawacyadii halkaasi ku dhaawacmay la geeyay goobo caafimaad oo ku yaalla gobolka Mudug, iyadoo isla markaana hadda ay socoto dhawaaqa rasaasta sida wararka hordhaca ay soo gaaray warbaahintu ay sheegayaan. Gobolka Mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo laalaabanaya dagaallo markaasi u dhexeeya laba maleeshiya beeleed kaasoo salka ku haya arrimo la xiriira aanooyin qabiil, balse hadda saacado kadib waxaa halkaasi ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed sidoo kalena ku wada sugan gobolkaasi Mudug.